kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaanba kusoo dhawaada toddobaad kaliya barnaamijkeeni dalmar oo asbuuci oo maraad ka daawataan telefishinka iyo raadiyaha Puntland stuudiyihiisaanu ku leenahay galbeedka magaalada London. waxaanu aalaaba kusoo gudbinaa daawadayaal barnaamijkeena dalmar umuuraha qurba joogta Soomaaliyeed guud ahaan si ay usoo gudbiyaan waxyaalaha iyaga ku kaydsan si ay ula wadaagaan bulshada inteeda kale ka daawanaysa telefishinka Puntland shaashadiisa. toddobaadkan daawadayaal barnaamijkeena dalmar waxa aanu ku wareysan doonaa laba gabdhood oo Soomaaliyeed oo lagu kala magacaabo Xaawo Axmed Faarax iyo Faaduma Sofia Ways oo labaduba ah dhalinyaro isla markaasna wax bartay una istaagay ama isu xilqaamay wax ka qabashada arrimaha haweenka Soomaaliyeed. Faaduma waxay barataa digriga BBA jaamacadda KMU ama Kenya Methodology University ee magaalada Nairobi, halka Ramla ay waxbarashadeeda sare ku diyaarinayso fashion and designing ama qurxinta designada ama nashqadaha haweenka. labaduba waxa ay marti noogu yihiin barnaamijkeena dalmar ee toddobaadkan waxa ayna ku sugan yihiin stuudiyaha iyaga aanu ku leenahay magaalada Nairobi ee wadanka Kenya. Faaduma iyo Ramlo kusoo dhawaada telefishinka Puntland. waan dhawnahay walaalaha oo mahadsantahay in badan. waa idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina mar kalena waan idin soo dhaweynaynaa marka hore anoo ku hormaraya Faaduma anoo ku hormaraya faahfaahin waxaad naga siisaa Faadumo barnaamijkan aad ka hadlaysaan waxa uu yahay iyo waxa uu ku saabsan yahay. walaalaha waad mahadsantahay su'aashaadna weydiisay. horta u horeysa haddii aan faahfaahin aan ka bixiyo barnaamijkan anaga aan soo bandhigi rabno insha Allah aniga iyo saaxiibteydii Xaawo Axmed Faarax waxa weeyaan horta in badan dib badan baa nagu dhacay haddii aanu nahay shabaabka oo horta haween hadaynu nahay mid horeyso. tan labaadna waxa waaye in dhibaatooyin badan baan ka kulannay waxa waaye iskuulaadka maxaa lihi jiray waxaan lagu dhahay waxa la rabaa identity wax la yiraahdo taasna waxa weeyaan wax oo aqoonsi ah inaad Kenyan tahay mise inaad refugee tahay leana dhibaatada anaga u horeyso waxa weeye marka aad refugee tahay badanaan iskuulaadka chance kama helaysid fursado badan kama helaysid. teeda kaleeto haddaan haween nahay xuquuqda dumarka aad looma fiiriyo maxaa la dhihi jiray guurka oo degdega ah oon gabadha ka fiirsanaynin oo familkana ka fiirsanaynin badanaan oo la yiraahdo maxaa la dhihi jiray gabadha iskuul kasta haday dhigato meelna kuma gaarayso leana jikadu bay ku soo noqonaysaa si la dhihi jiray. laakiin se anaga taas inaan bedelna aan rabnay marka waan isku imaanaa waxaan is iraahnay bal meel aad ku dhiirigelisiin gabdhaha oo tiraahdeen meel alla meesha joogtiin qaxooti ahaada mise aadan ahaan fikrad aad qabtiin oo meel isku gaarsiin kartiin oo isku gaarsiin kartiin wax meelna waad iska soo bixin kartiin. marka waxaad u istaagteen arrimaha haweenka inaad aad raadisaan xuquuqaha ka maqan. haddii isla su'aashaasaan weydiiyo Xaawo maxaad ma isleedahay inaad xulataan inaad arrimaha haweenka aad ka hadashaan waqtigeedii waa la joogaayo xilligan way ku habboon tahay maestri? waan isiray dad waxaa jira ku hawlan arrimahan oo kale oo soo waday muddooyin oo arrintan aad baa looga hadlaa. maxaa hor taagan baad isleedahay mar walba cabashooyinkan soo noqnoqonaya in wax laga qabto? maxaa arrimaha haweenka sida haween badan ay dareemayaan ay u noqon laayihiin? waxaa dareemaya maxaa la yiraahdaa gabdhaha horta hore haweenka dhalinyarada ka hadleena oo rabna inaan dhiirigelino waxay rabaan like qof waxa understand garan karo oo isla youth-ka isla yihiin oo shabaabka isla yihiin baahan dhaheena oo ii kale is caawin karaan oo ku dhiirigelin karaan. marka waxa dareemeynaa taa maadaama labadeena youth nahnay inaka ku caawin karno. waa hagaag waad mahadsan tahay. isla adiga haddaan ku weydiiyo Xaawo waxaad xulateen inaad la hadashaan gabdhaha yaryar ee haweenka da'da haweenka aad rabtaan inaad beegsataan oo barnaamijkiinu ku aadan yahay waa da'de
waxaa waaye da-da oo ka bilaabanaysa gabdhaha markii teenska oo 13 ilaa 25 da-daas aan rabnaa inaan la hadalno badanaa ku xoojinayno. waa mahadsan tahay faadumo haddii aan u noqdo faadumo maadaama da-daas aad xulanaysaan ilaa 12 ilaa 25 waa 13 sano oo marxalado badan haweenku ay soo maraan iyo isbedbedel badan iyo caqabado badan oo noloshooda waxaad nooga sheegi kartaa dhibaatooyinka ku dhaca hablaha da-daas aad xulateen u dhaxeeya inta badan oo aad rabtaan inaad tooshka ku ifisaan ama arrinta aad rabtaan macnaha inaad xoogga saartaan oo barnaamijkeena u ah halkudhaga ama saldhigga u ah waa hagaag horta anaga marka aan dooranay agekaas waxaa weeye waa markii ay dhibtoodaan badanaan wax pressure la yiraahdaa jirto oo peer pressure taasina waxay ka imaadaa waxaa weeyaan qof ani saaxiibkeyga ah mise oon isku dhownahay inay tiraahdo waxaas bal ha sameyn bal meel hebel aan aadno iskuulka aan iska dhaafno marka anigii wixii pressurekii baa igu jiro waxaa waaye waxaan rabaa inaan meel aan ka muuqdo oo liidhahaa waxaan dhahno cool waxaa waaye calaashaan inaan bulshada aan ka mid noqdo oo aan meel calaashaan qof oo maanta oo ilbax ah li ii maleeyo marka wixii baan aan sameynayaa waan ka baxaa iskuulkii ma aadayo waalidiintii way ogyihiin inaan iskuul aaday laakiin maan aadin mideeda kaleeto waxaa weeye dhibka ayaga naftirkooda kala kulmaan anaga naftirkeena ahaan waan kala kulannay waxaa weeye waxaa lagu dhahayaa 13ka markaad gaartid ood 14ka usii dhowdahay waxaa lagu leeyahay waxaad iskool ka dhigatid ma lahan lianna waxaa lagu leeyahay dumar baa tahay intii yariista aad barato ood magac ku qori kartid waa khalaas way kugu filan tahay marka anaga waxaan leenahay waxaan rabnay inaan munaasabadan aan maxaa dhihi jiray aan fursad ku qaadano oon yiraahno meel alala meeshaa joogtid 13 ahaatida 25 ahaatida meel waad iska soo bixin kartaa waxaa loo baahan yahay kaliya waxaa weeye inaad ka fikirtid ood firistid oo tiraahdid maanta wax baan isku qaban karaa maxaan qaban karaa maxaan adduunka ka bedeli karaa maxaan bulshada ka bedeli karaa markaas intaas baan u fiirinay anagana waa wax anaga aan maanta aan dhaho maanta aniga xaawo naftirkeena waa wax anaga naqoseeyo lianna iskuulka waan dhiganay jaamacada baan ku jirnaa different philosophical maxaa dhihi jiray wax badan baan qabanaa ayada fashion ay ku jirtaa haweenkay ka saabsan tahay anigana human resource waxa la dhahayaan ku jiraa marka aniga waxayga waxa quseeyo waa bulshada wax badanna waan aragnay waa mahadsan tahay Faadmo xaawo haddii aan usoo noqdo xaawo ma jira wax baaritaana maadaama mawduucan aad doorateen inaad ka hadashaan waa mawduuc aad u ballaaran runtii ma jira marka baaritaan aad ku samayseen mawduucan aad ka hadlaysaan waxyaalaha aad u baahan tihiin meelaha aad ka gelaysaan bal noo faahfaahi haddii uu jiro baaritaan inaad ku samayseen ama research waxa afka qalaad lagu yiraahdo okay baaritaan badan waan ka sameynay maxaa la yiraahdaa ileen oo maxaa la dhahaa Faadmo hata waxay u aaday ileen northeastern iyo meelaha badan oo gabdhaha yaryarka oo dhibaatooyinka badan ku haystaan bay u aaday inay kala soo hadasho oo documentary badan ay soo sameysay maxaa kale oo ku dadaalnay oo hagaajinay YouTube page aan soo dhigi doono fiidiyoyaal badan oo gabdhaha dhalinyarada oo ku dhiirigelinayso oo inspiration fiican ku siinayno maxaa kale oo hagaajinay maxaa la yiraahdaa Facebook page oo magaciisa codka gabdhaha Soomaaliyeed xaawo waa u iman doonaa meelaha aad rabtaan inaad bulshada ku gaartaan arrinta baaritaanka researchka maadaama aad tiri Faadmo ayaa soo samaysay Faadmo haddii aan u gudbo Faadmo baaritaanka aad soo samaysay arrintan oo ku aadan bal nala wadaag horta waxaan aaday dhanka waqooyi bare baan kasoo sameyn rabay baaritaan waxaan aaday adiga bishii lasoo 2 bilood oo lasoo dhaafay marka meesha markaan aaday wax badan aan kala kulmay waa midda koowaad waxay ahayd gabdhaha badanaan waxaa waaye way waxaa la dhihi jiray dhaqaalahooda ayaa yar waxaa arkay family oo iska dhaqaale yar oona heer jaamacadeed aad ka hadlaysaa maba gaaraanba heer oo secondary ay ku dhameeyaan hataa form 4koodii ayadiina waxay isleedahay bal tan beeshayba gashay anigii naftirkeygii iskuul waxaan ka dhiganaysan jirin ee iska guursata ayadana oo meel xun hadee rabta inay gasho hadhowti wax badan kala kulanto oon ay dhaqaale haysanin oon maxaa la jira cilmi ay haysanin ay maanta meel isku gaarsiiso
midda kalena waxaa weeye dagaalihii meesha ka dhacayay oo la maqlay maxaa lihi jiray oo hadda lasoo dhaafay oo qabiil ahaataa dowlad ahaataa waxun baa dhacay wixii dhacay marka badanaan waxay u gaarsiisay ilmihii inaysan iskuul aadin gabdhaha keligooda maana taa wiilasha midda ta saddexaad aan maanta aan fiirin rabana waxaa weeye midda Facebook la internetka gabdhaha isticmaalayo badanaan waxaan aragnay almost 50% statistics markaan fiirino aan gadaal u noqono 50% of the girls waxaa waaye ma iskuulka ma aadaan ama hadday aadaan Facebookii mise wixii bay isticmaalayaan kuma mashquulsana iskuulkii marka internetkana dib buu keenay laakiin halkaas gabar aan wax baran ama weliya gabar baan rahan laakiin gabdhaha maadaama aad doorateen inaad ka hadashaan oo social network ama baraha bulshadu ay ku kulato isticmaalaysa soo laftarkeedu khatarteeda ma lahan khatar weyn ay leedahay dad badan aad jirto oo meesha dhibaatooyin badan kula kulmay calaashan qof bay iska baranayaan internetka sawiraantooda ay soo dhigayaan sawiraanta si anshax xumo baa loo isticmaalaa lianna ma ka fikirayaan mana aqaanaan sidii loo isticmaalo oo maxaa lihi jira habka fiican loo isticmaalo haddii aan yiraahdo waa hagaag arrinta baaritaankeena halkaa uga tagno haddii aan ku noqdo xaawo yaa idinka caawinaya kulamada aad haweenka aad u qabanaysaan maadaama aad doonaysaan inaad la hadashaan haweenkii oo aad u sharaxdaan barnaamijkan aad wadataan waan gartay qof naga caawinaya ma laha kan waxaa waay fikrad ani Faadumo la soo baxnay oo ku fikirnay maadaama anaka nahnay maxaa la yiraahdaa gabdhaha oo kamid ah gabdhahaas waxa naga caawinaya ma laha waa anaka soo bixinay oo rabno inaa gabdhaha dhiirigelino codkeen la maqlo idinka gabdha ahaan waxa idinku dhiirigeliyay barnaamijkan inaad qabataan xiriirka idinka iyo arrimahan haweenka aad qabanaysaan idinka dhaxeeya muxuu yahay waxa waaye because dhalinyaro isla anaka isfahmayno like waxay maxaa la yiraahdaa waxay go through grain anaka waa go through grain waxa anaka fahmi karno oo waxaad khibrad u leedihiin idinku khibrad ma u leedihiin dhibaatooyinka haweenka ku dhacaya waa u leenahay like maxaa la dhahaa waxaa laga yaabaa familkeena ku dhahaan maadaama refugee tahay maxaa la dhahaa wax ma samaysan kartid iska joog iskuulaha aadin maxaa la dhahaa ilaan qofka ilaan waxa intaas oo dhan oo sana kusoo dhuminaysa maxaa la dhahaa meel sana ma gaari kartid laguma aqoonsi ma yeelan kartid because waa qaxooti baa tahay wax qabsan kartidna ma laha Faadumo haddii aan u gudbo Faadumo baaritaankaas oo dhan baad soo sabaysay xogahaas aad raadisay ilaa iyo xirihii qaxootiga tagtay wax badan baad soo aragtay waxaad go'aansateen inaad kulamo qabataan xagee ayaad kulamada ku qaban doontaan marka sidee u adeegsan doontaan oo rabtaan inaad bulshada intaa leeg aad ku gaartaan horta kulanka hadda waxaan ka bilaabnay Nairobi insha Allah waxaan rajayn doonaa inaan dhanka Garowe iyo Hargeysa iyo Muqdisho inaan gaarno insha Allah lianna hadda waxaan ka hadlaynaa waxa waa haweenka Soomaaliyeed soo waxa fahanti maahan marka dhibka badan waxay ka yimaadaa waa dhanka gabdhaha Soomaaliyeed marka badanaa waa dhanka Soomaaliya waxa laga yaabaa inay macallimiinta ay dhaqaale fiican aysan haysan oo inay rabaan qof maanta iskuul rabo way jirta qof walba cilmi uu raba qof aan rabin ma jirto marka haddii aan meesha aan maxallijiyo intaadan ka bilaawno ilaa duunoo qoro aan meesha aan gaarno waxaan rabnaa inaan ka wacyigelino dadka sifa ay ku helaan qof dad saacideeyo oo ama sponsor ah oo maanta ay cilmigooda meel sare ku gaarsiin lahaayeen ama cilmigan ka hadlin oo dhaho meel ay horumar ku gaari karaan ayaga ay rabaan insha Allah aan wax ka qabano sidee baad rabtaan dadkaas inaad u caawisaan horta markii la dhahaa dhibaatooyinka aqoonsiga waxa weeye waa wax oo anaga dhan haysto dumar iyo ragba soo waxa garatay maahan marka anaga midda anaga culayska nagu ah waxa weeye oo anaga dee aan haweenka aan nahay dana teeda kale Soomaali aan nahay oon aqoonsiga aan haysanin waxa weeye dhibaatooyin badan ay kala kulmaan marka gabdhii way cabsanayaan waxay qaban karaan ma lahan anagana haddii aan yiraahno waan saacideynayna waxa waaye arrimahan camal marka aan bulshada u soo bandhigno
oo aan ka hadalno oo aan ka sheegno li'aana adana Nairobi baan dhex joognaa hadda marka haddii aan ka hadalno waxaan rabnaa inaan usoo bandhigno ummadda sifa ay xitaa dawladda inay u aragto ay yiraahdaan gabdhahanita waa maxaa lihi jira gabdhaha Soomaaliya dhibaatooyinka haysto oo dhanka aqoonsiga ah ay sidee u saaciideyn lahaayeen insha Allah waa hagaag haddii aan ku noqdo xaawo barnaamijkan aad qabanaysaan hadafka aad ka leedihiin muxuu yahay waxa aad rabtaan inuu ka soo baxo mustaqbalka maxaad ka rajaynaysaan inuu ka bedelo arrimaha haweenka Soomaaliyeed hawshan hadda aad qabanaysaan waxaan ka rajaynaynaa maxaa la yiraahdaa inay haweenka Soomaaliyeed oo laha fikradaas ee jirto la dhahayo maxaa la dhahaa gabar ama guriga kaaga jirto mise ama gudaha kaaga jirto inaa bedelno gabar Soomaaliyeed wax meel kasta ay joogto iyadoo hataa laga yaabaa oo guri wax kasta leh horumar gaari karto soo maxaa ugu dhiirigelin lahayn aadan uga hadal lahayn inaa ku bahalkeen maxaa la dhahaa motivation ku siino wax kasta ay rabaan haddii aan idin weydiiyo waa maxay hadafka aad ka leedihiin shaqadan aad qabanaysaan oo aad rajaynaysaan inay ka soo baxdo mustaqbalka maxaadna rajaynaysaan inay arrintaani wax ka bedesho ama ay ka bedesho arrimaha haweenka Soomaaliyeed haddii aan ku hormaro Faadumo waa mahadsan tahay horta kuwaad hadafka anaga aan ka leenahay meesha waxaa weeye maxaa la dhihi jiray cilmiga gabdhaha oo maxaa la dhihi jiray xaqa ninka si wiilka si xaqa loo siinaayo markii guriga la joogo gabadhana loo siiyo soo waxa garatay maahan cilmigii oo wiilka maanta oo guriga maxaa la dhihi jiray qoyska Soomaaliyeed ka soo baxayo wiil oo maanta cilmi qaba haduu ka soo baxa waxa laga rabaa in ay gabar oo cilmi intaas ay gaartay oona wax ku qabsan karto ka soo baxda mida kaleetana waxa waaye meel allaala meesha joogto horta arinta tahriibkana waan ka hadli doonaa insha Allah waxa weeye meel allaala meesha joogtid ama Kenya ha ahaata ama Soomaaliya ahaata ama qurbaha kale ahaata Mareykanka iyo meelahaas kaleeto wax waad ku qabsan kartaa ma ahan inaad soo tahriibtid oo meel kale aadid waa in adiga maanta fikradii xaq ku qaban lahayd intana aad ku qabatid oo aad si fiican ugu fikirtid oo raadisid qof oo maanta maasha Allah wax ku qaban kara waana way badan yihiin anagaan raadinin hadda waxaan anaga meesha u fadhinaa waxa weeye inaan soo bandhigno oo toosh ku shidno oo yiraahno intaas waad qabsan kartiin oo anaga ku dhiirigelino umada inay qabtaan anaga taa waxna dhiirigeliyo way jirtaa liana hadii qof dhiirigel aanan helin maanta meel maanan gaari lahayn munaasabada maanta la iskugu imaadana maanta meesha ma fadhin lahayn soo waxa garatay maahan waasa marka anagana waxaan rabnaa sifa anaga maxaa la dhihi fursadaha aan helnay inay gabdhaha Soomaaliyeed oo maanta ay maxaa la dhihi jiray oo dhaqaalahooda iska yar yahay oo meel ay joogaan oo Ilaahay og yahay inay ay helaan fursadaha anaga camal ah oo anaga maanta aan helnay barnaamijyaad ka qabanaysaan arrinta qaabkeed rabtaan inaad barnaamijyadaas aad qabanaysaan ay wax uga bedelaan mustaqbalka haweenka Soomaaliyeed barnaamijyada noocee baad u diyaarinaysaan waxaan u diyaarinaynaa waxa idin qorshaysan ma jira wana qorshaysan waxaan u diyaarinaynaa اسبوعي mid barnaamijku wuxuu soo gal doonaa isbuuci hal jeer amida soo qabanayna barnaamij baa soo duubi jirnaa barnaamijkaas aad ku falanqeyn doontaan arrimaha haweenka waa mahadsan tahay Faadumo haddaan ku soo laabto arrin baa taabatay khatarteeda leh oo aad dhibaato badan ugu haysa mujtamaca Soomaaliyeed waa arrinta tahriibta bal arrintaas saameynta ay gabdhaha sida khaaska ay ugu yeelato iyo sida looga badbaadin karo maxaad arrinta nooga sheegaysaa horta saameyn weyn way ku leedahay mideeda waxa mid u koowaad horta hadii aan taabto waxa weeye markay tahriibto oo saxaradaas gasho oo biyaas gasho waxa weeye wax badan ay kala kulmaysaa liana waa la kufsan karaa ilaan waa gabar Soomaaliyeed dad badan umad badan oo meesha iskugu imaada oo waxa laga qaar cayal suuqa meesha iskugu imaanayso umada dhan isku mid ma noqon karto marka inaa la kufsado laga yaaba dadka meeshii dadka qabsanaya sheegay inay qabsadaan waa laga yaaba
arrimo badan ay kala kulmi kartaa waxaa laga yaabaa inay ilmaheeda kasoo tagtay ee maanta haday dhimato ilmaheeda rajo waayaan marka wax badan ay kala kulmaysaa haddaan dhahana wax laga bedeli karo maanta waxaa weeye inaa la wacyigeliyo oo hadda waxa anaga qabanayna waa waxaan ugu fikradda ugu weyn oo maantana qabatay waxaa aan dhahnay munaasabada usoo bandhiga ummadda Soomaaliyeed waxaa weeye oo dhanka haweenka ah waxaa weeye maanta inaan cod u noqono oo ay yiraahno bal tahriibka aan aragno lacag baad ku isticmaal intaas oo kumanaan oo dollar baad isticmaalaysaa meel baad ku furan kartaa oo maanta horumar ku gaari kartaa hatta waxa ka soo bixi kara meel aad ku baratid laana maanta qurbaha hadaad tagtid iskuul baa lagaaga baahan yahay inaad luqadda baratid baa lagaaga baahan yahay teeda kale inaad jaamici noqoto oo meel aad ka soo baxay baa loo baahan yahay wixii ay wax kugu qabanayaan intana waad ku qaban kartaa laana hadaad meel furtid oo meel aad ku gaartid cilmi sare waad gaari kartaa wax walba waxa loo baahan yahay inaad tartiib u samaysid soo waxa faantay maahan oo maalin lagu ma dhisi karo guri dhan oo idil waa tartiib adi waxa waa maalin kaba maalin waa garta waa hagaag isla Faadimo haddii aan adiga ku siiyo waa maxay gabagabadii waa maxay fariinta aad u direysaan daawadayaasha laga yaabo barnaamijkan inuu sida gaarka u qoseeyo khaasatan gabdhaha yaryar ee da'doodu 12 ilaa iyo 25 oo u dhaxeeyo oo idin daawanaya maxaad ku oranaysaa adoo fursadan ka faa'iideysanay waad mahadsantahay fursadda aad siisay aniga horta waxaan ku oran lahaa waxa weeye maanta anaga hadii aan meeshan xaaway anigaba aan meeshan aan fadhino waa wax anaga aan iska keensanay ayagana meeshan way soo fariisan karaan liana waxa laga yaabaa gabar oo iska rabta inay maanta ay barnaamij qabato oo wax sameeysato way sameyn kartaa wax celin kara ma lahan waxa celin kara waxa weeye waa fikradeeda adigada anigana waxaan dhihi karaa daawadayaasha maanta oo haweenka siba adi baad is celinaymo qalbigaada iyo maskaxdaada ku celinaymo qof kale ku celinaya ma jirto adduunkan wixii Ilaahay ku qoran qof weynayo ma lahan waxa lagaaga baahan yahay waxa waaye inaad adiga naftirkaada is dhiirigelisid oo is tiraadi waxa waan qaban karaa waxna anigana nolosha waan bedeli karaa soo waxa faantay maaha kuwa cadaankaas waxay ku yiraahdaan the crazy people who are crazy enough to think that they can change the world can actually change the world haddii aan sii faafay waxa weeyaan qofkii maanta inuu isiraado waa waalanahay waalidana oo ah adduunko idil baan bedeli karaa baan wax ka bedeli karaa hadaan sii dhaho waad ka bedeli kartaa waxa arkaysa adoo wax ka bedeshay maanta aniga 2 qof 3 qof hadii aan bedelo labadii qof ku kale way sii bedelayaan wax bay sii dhirigilaan waxba u sii sheegayaan marka ani waxaan dhihi lahaa all it takes waxa way adiga inaad fariisatay oo tiraado maxaan qaban karaa maxaan noloshayda ka bedeli karaa insha Allah waana maxal intaad waan arki doontiin wax badan waan ii sheegi doonaa intaan sii guda galin insha Allah barnaamijkeeni dalmar ee toddobaadkan oo aanu idinku soo gudbinaynay codka labada gabdhood ee Soomaaliyeed ee doonaya inay wax ka qabtaan arrimaha haweenka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan haweenka da'yarta ee da'doodu 12 ilaa 25 sano ay u dhaxayso oo aanu ku wareysanay iyagoo ku sugan stuudiyaha magaalada Nairobi aanu ka wareysanay anagoo ku sugan halkan iyo galbeedka magaalada London waxaan aad ugu mahadcelinayaa intii kala qayb gashay barnaamijka gaar ahaan kooxda Nairobi oo Maxamed Shiino ugu horeeyo waxaan u mahadcelinayaa mar kale Faadimo Sofia Ways iyo waliba Xaawo Axmed Faarax barnaamijka sida ay nooga qayb galeen tan iyo barnaamijkeena dalmar barnaamij la madaynteenu dib ugu kulmi doono وبهذا Puntland TV UK isku duuban oo idin leen nabadgeliyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh